lan qaadaya hawshaas inaan laba laabi doono xilli adag ayaad soo madax ka soo noqotay oo ku meel gaarnimada laga baxayay taariikhdaas muhiimka ah waxa macquul ah dhalinyarada halkan joogto in aysan qaarkood aysan xilligaasi ay aad u yaraayeen laakiin taariikhdaas waa soo koobaya noqomaasan tahay runtii dhalinyaradu hadda aad u tahriibaan waxayna ka tahriibayaan ayadoo dalku nabad yahay haddana magafayaal iyo dhibaatooyin fara badan la kulmaan hadduu ilaahay mar labaad kugu soo celiyo maxaa ajenda ah oo dhalinyarada ka leedahay ma u sameyn doontaa qondo gooni ah sida qondada dumarka camal qoraaga su'aashiisii waxay ahayd haddii aad guulaysato dhalinyarada tahriibaysa maxaa kaaga qorshaysan saas oo maleynaa haddii la soo koobo dabcan dhalinyaradu waxay u tahriibayaan waxa ugu weyn fursadda nololeed ama fursadda dhaqaale ama fursad inay nolol helaan ayaa adag runtii meesha ay marayaanna waa meelaan aqaano aad u khatar badan aadaan uga xumahay dad badan oo dhalinyaro ah inay maraan jidkaas dheer oo ku dhammaanaya xeebta Liibiya inay maraan aadaan uga xumahay waliba iyadoo hadda nidaam adag oo san ka jirin oo qofkii maxaan ku iraahdaa khatar ugu jiro magafayaal aan naxaynin oo maalin walba aan wada aragno dhibaatadii u geysanayaan dhalinyarada in ay khatartaas u bareeraan dhalinyarada arrintaas keentay waa rajo xumo ani marka waxa iigu horeeyay waxa waaye rajada dhalinyarada horta kor inaan u soo qaado rajadana waxaa kor loogu soo qaadi karaa in dowladnimadii iftiinkeedii iyo wada lahaashadeedii iyo shaqadeedii ay soo noqoto in amnigii uu soo noqdo in soomaalinimadii ay soo noqoto xilliga aniga hadda dalka madaxweynahan ka ahay dhaqaaluhu intaan waa ka yaraay uma dhoweyn laakiin haddana tahriibku intaan waa ka yaraay waa la wada ogyahay rajada dhalinyaradu ay qabaanna aaday u weyneyd maadaama hadda xilli adag la joogo loo baahan yahay dhalinyarada in la dhiirigeliyo aniga waxaan ballan qaadaya inaan doorka ugu muhiimsan siiyo dhalinyarada qaybaha kala duwan ee dowladda gaar ahaan wasaaradu waxay u baahan yihiin dhalinyaro hufan oo firfircoon oo loo diyaariyay inay u qabtaan shaqada ay bulshada uga baahan tahay taas waa laba faa'iido faa'iidada koowaad dhalinyarada shaqo u abuurtay faa'iidada labaadna waxay u adeegayaan bulshadii ay u dhasheen oo loogu talagalay inay u khidmeeyaan marka dad badan kolley waa xogogaal ayadoo dowladdeena waqtigooduna oo koobnaa ay 4 sano ay ka yareed duruuftu ay aad u adkeed dhalinyaro badanaa fursad ka heshay oo ilaa hadda dowladnimada ku dhex jirta xilliga soo socdana ilaahay hadduu na guuleeyo waxaan ballan qaadayaa hawshaas inaan laba laabi doono